kusoo dhawaada barnaamijkii aanu kaga hadlaynay xeerka gudida hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa labaad oo aynu ku soo qaadan doono magaca xeerka. xeerkan waxaa loogu yeedhayaa xeerka gudida hay'adda dhowrista tayada. qodobka saddexaadna waxa uu ka warramayaa ujeeddada xeerka. xeerkani waxa uu dhiirigelinayaa daryeelidda heertayeedka, cabiraadda iyo sugidda kalsoonida agabka, adeega iyo dhaqangelinta si loo aasaaso hay'adda dhowrista tayada Somaliland oo u taagan horumarinta, daryeelidda iyo dhiirigelinta heerarka tayo, ogolaansho cadna u haysata shaqadeeda maamul iyo ilaalineed ee tirtiridda wax soo saarka been abuurka amaba tayadiisu ay liidato. qodobka afraadna waxaynu ku eegi doonaa asaasidda gudida komishinka dhowridda tayada. xeerkan waxaa lagu dhisay gudida dhowrista tayada oo ah hay'ad qaran oo leh shakhsiyad qaanuuneed iyo shaambad u gaar ah una madax bannaan maamul ahaan iyo dhaqaale ahaanba. xarunta gudidu waa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa. xafiisyano way ka furan kartaa gobollada iyo degmooyinka dalka. gudida komishinku waxay yeelanaysaa astaan u gaar ah oo ay go'aan ku soo saaraan. qodobka shanaadna waxaynu ku eegi doonaa barnaamijkan labaad eenu kaga hadlayno xeerka gudida hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Somaliland. magacdhawga komishinka. magacdhawga komishinku waxa uu noqonayaa hay'adda dhowrista tayada Somaliland. qodobka lixaadna waxa uu noqonayaa astaanta hay'adda. astaanta hay'adda dhowrida tayada Somaliland wuxuu noqon doontaa geedka gelida oo ay la socoto laambad iyo calaamad saxa iyo magaca hay'adda oo Ingiriisi iyo Soomaaliya oo ay la socoto astaanta qaranku. qodobka 7 mabaadi'da guud. ujeedooyinka gudida loo asaasay waa: in la baadho lana hubiyo badeecadaha xambaarsan khatar iyo halis waxyeello u geysan kara dadka Somaliland. in la dejiyo halbeegyo lana hubiyo inaan laga hoosayn halbeegyadaas. in la xaqiijiyo in si buuxda loo hubiyo tayada dhammaan wixii dadku isticmaalo. in la caddeeyo digniinaha luqadaha qalaad ee ku suntan agabka iyo anfaaciga iyo dhammaan badeecadaha keeni kara halisa caafimaad, dhaawac iyo dhimashooyinba. in dadweynaha laga ilaaliyo halisaha la xidhiidha badeecadaha. tayeynta abuuridda iyo kor u qaadidda heerka caafimaad ee wax soo saarka warshadaha dalka iyo alaabooyinka soo dega xoolaha iyo beeraha si loo ilaaliyo caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba shacabka reer Somaliland. xadeynta heer aanay ka hoosayn karin adeega iyo alaabooyinka soo degaya. hubinta iyo gaadhsiinta baayac mushtarka heerka loo xadeeyey iyo fulinta sharciga loo dejiyo. talasiinta macaamiisha shacabka iyo qiimaynta badeecadaha dalka soo gala, kuwa dhoofaya iyo kuwa ka soo baxa warshadaha dalka iyo beeraha. ukurgelidda in baaritaan lagu sameeyo waxyeelooyinka ay sababaan alaabada dalka soo gala ama ka soo baxa warshadaha dalka. xaqiijinta iyo sugidda fooyoobidda wax kasta oo dalka soo gelaya ama ka soo baxaya warshadaha dalka ama dalka dibaddiisa loo dhoofinayo. intaba abuuridda shaybaadh qaran oo lagaga baxo dhibaatooyinka caafimaad ee dalka iyo dadka haysta. dhegeystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan oonu ku soo qaadanay xubinta koobaad qodobadiisa 2, 3, 4, 5, 6 iyo 7.